halkani waa hoolka guriga maamulka gobolka Bari oo maanta loo balansanaa isla markaana lagu qabtay shirka maamulka gobolka Bari iyo nabaddoonnada udub-dhexaad u ah kana mid ah tirarka dhaqanka ee Puntland in ka badan 200 oo nabaddoon oo diyaar u ah inay dhageystaan dacwadda maamulka cusub ee gobolka Bari ayaa soo buux dhaafiyay hoolka waxaana uu salka ku hayay shirkan oo saxaafaddu goobjoog ka ahayd intiisa badan xog waraysi u dhaxeeya maamulka gobolka Bari iyo nabaddoonnada gobolka Bari ka howlgala la kulanka iyo isxoguraysiga nabaddoonnada gobolka Bari waxa uu ka mid yahay hadafyada iyo yoolasha uu ku dulayo maamulka cusub ee gobolka Bari waxaana uu qayb ka yahay shirar maalmahanba ka socday magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari oo guddoonka cusub maalmahan la yeelanaya haldoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Bari waxaana kulankan ka soo qayb galay nabaddoonno maamulka cusub ee gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari amniga gobolka Bari waa fiican yahay wax dhiba kama jiraan xaaladdu waa kala degan tahay balse waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka gobolka Bari inay amniga ka wada shaqeeyaan oo laamaha ammaanka ay la wada shaqeeyaan waxaan ka doonaynaa inay si adag noola shaqeeyaan Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari ayaa waxa uu ka warbixiyay kulankii maanta dhex maray isaga iyo nabaddoonnada gobolka Bari halkan kula kulanay nabaddoonno gaaray ilaa 200 oo nabaddoonnada ka mid ka gobolka Bari oo dhan iyo degmooyinkiisa kulankaasi guul buu ku dhamaaday isafgarad buu ku dhamaaday waxaan rajaynaynaa qodobadii aan ka wada hadalay inay muuqan doonaan hadduu alla idmo kulamada wali ma dhowaa sida taliyaha qaybta idin sheegana qodobka koowaad wuxuu noo ahaa amniga mar walbana wuxuu noo yahay amniga amnigu waa muhiim inaanu siinona hadee waxa keenaysa amni ilaaantii lama noolaan karo sidoo kale waxaan ka wada hadalay wada shaqaynta iyo kalsoonida shacabka sidii loo abuuri lahaa iyo maamulka taasuna meel fiican baan isku afkaranay iyo wax wanaagsan waxaan rajaynaynaa kulamadii dhalinyarada iyo haweenka culimada ganacsatada qaybaha kala duwan inay hore u sii socon doonaan isla berrina aan anba qaadi doono insha Allah markaan soo afjarrana aan tagi doono degmooyinka 5 degmo kale runtii haddaan waxa loo shaqeynaya waa shacab haddaan shacabka kalsoonidiisii iyo maamulkiina wada shaqeyna hadda shaqo badan ma jirayso marka shacabkiisu inay gartaan ahmiyadda ay leeyihiin horumarka loo wado iyo amnigu waa muhiim Maxamuud Jamaal Maxamuud oo telefishinka on cable magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ee Puntland adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida